aniga iska kaydira laba kelmadood baan soo fuulay soo dhaw Amir gabadha laba kelmadood sii balaal mar orbe ina tusiniyo marada qaadayna qaado hayo mahadsantiin dhammaantiin waan salaamayaa ilmaadeerayaal inaan fikirkayga dhiibtaan usoo fuulay marka dee siba hadalkiis kugu taagtaagteen marka dee dad badan baana idin daawanaya xaaladuna dee dhinac bay ka raran tahay ma fahanteen marka anigu waxaan ka hadlayaa murtimaal iyo labada abwaan horta labada abwaan ma aha laba ninoo dee qadiyada daarood ku hadla intaan ka bartay oonyoodna waa daawadaa ninka la dhoo jinin boqorna waa daawadaa qadiyada daarood macnaha kama hadlaan ayagoo mee qadiyada daarood ku qaadanayana ma arag laakiin dee murtimaal waa nin dee ilaa YouTube ilaa dee Facebook ilaa meeshaan la joogo dee qadiyada daarood duuliya oo dee ka hadla siyaasadda maanta ka jirta dee wadanka marka lama simayo fahmaysaa ninka markii la maxkamadaynayo waxaa lagu maxkamadayaa ninkan qadiyada daarood ma ku hadlaa mise kuma hadlo labada abwaan qadiyada daarood iyagoo ku hadlaya haddii la arkay oo dee niman qadiyada duuliya ay yihiin maxkamaddu way qabanaysaa waana lasoo fariisinayaa tan murtimaal baan usoo noqonayaa murtimaal qolkiisa isagaa lahaa anigu maanta qol haddaan soo furto waxa ka dhacaya anaa xakamayn karaa anaana socodsiin karaa fahmaysaa qolkayga haddii nin intuu soo fuulo uu gardaroodo sida hadda sheekadu ku socotay waxaa gardarooday ninka la yidhaahdo oonyood oo gardarrada ku horeeyey oonyood anigu waan aamusin karayey oo waxaan dhihi karayay dee reerkaas tolka ah uguma xadgudbi kartid qolkayga in adeer ama hoosu deg ama anigu fikirka markaas aan ka hadlayo iyo malduuca igala hadal oo fikirkaaga ka dhiibo hadduu ka hadli waayo dee waa dejinayaa ma garanaysaa si aanba buuq u imaan qofna usoo fuulin meeshaan si anigu aan u kala badbaadiyo labadaa reer inaan anigu oonyood aamusiyo ama dejiyo hadduu hadalkayga maqli waayo labadaas anigaa doorka iskale fahmaysaa marka isagaa maanta khaladka ugu weyn murtimaal isagaa qaadanaya waayo ninkii weynaa qolka lahaa isaguu ahaa qadiyada daarood ninkay ka go-an tahay ku baranayna isaguu ahaa marka yaan laga leexleexanin maadeerayaal haddii dee tolnimada iyo daaroodnimada iyo la eegayo weeye fahmaysaa anigu maanta haddaan khaldanaya dayaan cidna qabiil iyo kanay xigiya kanaan abti u ahay waxayaan la iigu helin meeshaan qadiyad baa taalla ninkay ka go-an tahay dee qadiyadda ha ku socdo ninkayse ka go-anayna dee waxba lama maxkamadaynayo hortiisu u soconayaa lookalkiisa ha saarnaado marka murtimaal wuxuu qaladka ku qaadanayaa ma aha nin lookal ka hadla waa nin qadiyada daarood duuliya lalamana simaya nimankaas saan u fahmi weeye anigu waana mahadsantiin maadeerayaal intaasaan waayahay waa mahadsantahay inaad eer soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad meel wanaagsan baa dhigtay ilaahay caqliga iyo garaadka iyo garashada iyo damiirka iyo xiska intaba kuu siyaadiyo wallahi gabadhaas caqli daata wixii caawa dhaxalka ka dooda sheekul kulli daanta siida fodcado abwan warwugo soo qabso fodcado siida sundu salaad miyaa gabadhu war bulbulo waa ku salaamaya sundu soo ku salaamaya inaad long time war ka qaado dhamaantood waan salaamaya wixii soo ka qaado inaad qaabo ku iloobeynaan waa ku arkay laakiin wixii ay la tagay hadalkii waa la tagay bogt dhima siida waxaan garad soo dhawaadna garad soo dhawaad dhamaantiin aad baad salaamaya kale labaad baad salaamay dhalinyarada hoos joogta iyo ragga qiimaha badan halka saaran jooxo muxsin axmed fuucade school gangi bobol iyo sheekhul kulliba afeenkayga horeeyo malanay raalli hadana amiina anigu waaba iri inta hore lahaa hal kalmo baan ugu noqonayaa sundu soorto waa salaamaya ma sha Allah qof aan aad waqaan gabar aqal badan weeye niman yahow waxa weeye sheekada horta anigu horta hadda soo galay meesha waxa weeye kallay warbixintan waxa iga dibigiyay de muxsin iyo sheekhul kulli laba arrimood horta waxa weeye kiis dhacay oo daaro dhexdeena ka dhacay in khaladku markuu dhaco waxaa la yidhi caana daatay dabadood la qabay tusaalaanta qof dhalinyaro aan saaxiib nahay oo muxsin ama nimcaan ama sheekhul kulli ama jooxa boy ama bulbul ama school gang dhalinyaradan haddaan saaxiibadan nahay haddii khalad mid ka mida uu ka dhaco oo si babliga uga dhaco xalku ma aha in inta qol aan soo furno aan falanqayno oo kiiskii sii fogeyno qofka waliba anigu markaan saaxiibka nahay mar 2 3 waa ka warwareegaa xaqiiqan waxaa uga warwareegaa tulnimo guud
iyo saaxiibtinimo gaar ahaaneedba waxaan jeclahay inaan si bareefada inta uu waco aan dhaho wareedha hebelow inaanu maanta waa kugu dhacday ma wanaagsana sidaa saasaa jirta labadii meega wada qaatay iyo qofka qolka lahaaba inaanu dib yaanu usoo noqon waa sababta aanan u qeexin xaqiiqada dhabtaa hadda markaan qolkeeda ku yimi hase haatee waxaan leeyahay nin anigu daarood waa ku wareeray sababtoo caawa isku imaanaynaa waa duulinaynaa reerkii qadiyaddii baan duulinaynaa habeen dambe waxaa arkaysaa qof qadiyaddii kula duulinayay oo bartamaha ku dhufanaya ma garata dabeecadiyanna anigu nin warkiisu cad yahay baan hayo baasha in tareenkaa daaradnimada la wada saarnaado oo la duuliyo fikri baan aaminsanahay wax ka hooseeya ma aaminsani haddii aan xal u waayana waa ka leexdaa tolka waa ka warwareegaa marka ilmaada reer soo dhowaada kolley dabcan dhaliil un baynu hadda halkade isugu nimi dhaliishana inoo soo kooba wixii dhacay waa dhaceen waxa dambe wanaagsan aan xoogga saarno waa mahadsantihiin iska caweynaa kolley iska sheegsayna ma filayaa abaan soo dhowow bandhawaa inaad heraad baa idii salaamay dhammaantiin codkiisa wanaagsan ma loo maqlayaa may dhammaantiin waa idii salaamaya ilmaadareele kaliya laa baa idii salaamayaa gababaa waxaa ku jirtay uma baranbahday iyo inaanba iyo daarooda shisheeyaha war markaan baratanaan badin aqaanaa yow waxaa soo dhowaatay baa malaynaya waxaa xoogaa badatay maalmahan isdhaliilitaanka iyo in maaragtay meel walba maaragtay gacanta la geliyo ilmaadereyaalow mid baa rabaa inaad ii sheego horta sheekhal kulina waa meel waan kaga dheganaa sheekhal kuli wuxuu noqday wax walba waan ka xumahay amsori buu sheekhal kulina noqday madaxweyne munaafaqa inuu noqonaya usoo egtay sheekhal kulina ilmaadereyaalow mid baa rabaa inaad ii sheego horta dadku waa tol weeye daarood markaa laga hadlaayo daarood waa reer aad u ballaaran weeye meel every fucking day ilmaadeerayaal waxay isku caayaan qolal shisheeye ay isku caayaan hadda tusaale ka soo qaad labadaa nin waxaa la yidhi caawa way kaftameen baa layidhi way kaftameen hadday caawa joogi lahaayeen qol ka waran shisheeyaa oo ay ku kaftami lahaayeen ka waran qof shisheeyaa hadday joogi lahaayeen oo isku caayi lahaayeen ka waran ya soo kama sii xumaateena qol daarood oo weliba nin caaqila uu leeyahay oo murtimaal oo aan garanayno murtimaal waqti haddii la canaananayo ama la oranayo niyo marxuum baa tahay waqti ay mudnayd in lagu dhaho way jirtay laakiin waxay weli waqtigii waxay tolka dhexdeeda ay isqabteen xilligaana daarood oo dhan baa is wada qabtay laakiin maanta murtimaal social mediaha iyo facebook iyo meel walba nin qadeedii daarood la taagan weeye ilmaadeerayaal ma fiicna in qof maaragtay laga soo furto qol oo weliba lagu falanqeeyo kiyo qof lala hadli karo uu yahay qofkii una ahayn qof aan la aqoonin maaha murtimaal waa qof la yaqaano dhalinyarada social media ku jirtuu kamid yahay warda waa yimini kuwaana hadlay cidna qolka ma soo furan ha mayda ha hadlo laakiin yacni insaan dhan loo falanqeeyo oo dee tolkii iyo ummadii oo dhan indhaha lagu soo jeediyo wax weyn laga dhigo qofka haddii runta loo sheego walaalle qofka haddii nimcaan runta loo sheego oo la dhaho qalad baa gashay oo qofka uusan qaladkiisa ka garaabayn ma ceebba okay ma nin weyn oo daaroodnimada soo duulinayay oo aan ogahay meesha uu ugu jiro daaroodnimada ayaan intaan live soo fadhiisto aan halkan tolka dhexdeeda ku canaananayaa sidii ilmo yaroo naqan aan ku canaananaya ama qof aan la garanayn oo meel aan kala xidhiidh aanan garanayn waana runta in laisku sheegaa wanaagsan niman yahoon ilmaadeerayaalow haddaan qof walba waa marxuun iyo waa saan aan la daba taagnaano waa nin uu tolka intii wanaagsanayd baa meesha ku kala tegaysa nin raggu wuxuu sharaf ku leeyahay uu walaalo ku yahay uu qiimo ku leeyahay nin wuxuu qiimo ku leeyahay is-ixtiraamka dhalinyaradiina daarood ilmaadeerayaalow haddaynaad idinku is ixtiraamin oo meel walba isla daba taagnaataan shaambad iyo eed niyow cid dhegaysan doontahay ma jirto qol daarood aan waxa la tolo waxaan arkayay qolol kaloo intaa ka waaweyn oo rag waaweyn ay ku caytamayaan 24 hours rag baa kaftamaa social media daarood la-aanteen inaadeer daarood la-aanteed ma shidmaayo daarood wuu kaftamaa rag wada kaftama weeye laakiin in qofku uu xakameeyo waa sax oo la joojiyo qolal shisheeyaa la isku caayaa haddii dee ay dhacday in qol daarood lagu kaftamay ya ilmaadeerayaalow waxaa ka xumaan lahayd in qol shisheeye lagu kaftamo qofka daaroodka ma ogolaanaya in gabdha lagu caayo qolalbaa gabdhaheena xataa lagu maagaa marxuumaa jira qolalka shisheeyaha ku kaftama niya waxaa laga dhaco ayaan ugu odhan lahaa murtimaalna nin lala hadli kara weeye hoos baan ula hadlaynaa ilmaadeerayaalow ka dhaca arrimahaas idin odhan lahaa anigu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warwaaye waraanu hal daqiiqsiiyaan waa degayaa ilmaadeerayaalow shaqal kulliyow inaad waxa meesha ka socda inaad waan ugu jeednaa waan wada aragnaa shakhsi kastoo caqli leh oo saliima ugu jeedaa inaad in daaroodnimadu hadday noqotay in qofku wuxuu wanaag sameynayay wuxuu hadal sameynayaan cidna mushaar ku siinaynin
qadiyadda isagoo dhalashada eegaya dhiigga eegaya dhaqanka eegaya youtubeyadiisii ay buuxaan facebookyadiisa maalin kasta soo fadhiyo tiktok sidoo kale kadaalika meel kasta qol ka dhacayo haddeeba la leeyahay meeg uu qabtay oo koonisa de marxuum uu ku noqday deena adeer anaguna hadda nus kaga baxaynaa daaradna laftarkeeda ninka soo ciidamadiisa iyo caagadiisa biyaha habiyeysto wax la galo laga baxaa bulbulow de maye macnaha qadiyadda ka hadlaya kama hadlayo qadiyadda ka hadlaya ha qadiyadda ka hadlaya marka baasha hadday noqoto dee odagiisina baraashada wataa ii sawirmo sii socdee bal xaggan ha maye qof kasta caagiisa uu biyeysanaya marka in adeero iyo sheekh kulliyow qofkuna moogta fikradu waa kasoo horjeedaan qofka hadduu macnaha fikradaada uu kula aamini waayo xoogaa waa kasoo yila boodaysaa marka cumar dhuuliya heesaha moogtahay heestiisa waxaa ku jirta moogtahay in meel bugtaan ku dhaylaaye mar hun waxay tiraahdaa maxamed waa ku jeclahay haddii dad sadeecad ka ahaanin qof macnaha hadduu taada raaci waayo dee waxaa weeye waa hadduu ku yidhahdo xitaa qofku waxoogaa dee kula dhaliilo meesha waxoogaa waad ma garanaysaa marka inaad raftarkaagu ka soo noqo haddii meesha lagula dhegay oo dadkii caqliga lahaayo miyadda ahaayo dee daaroodka ahaa haddii macnaha wixii kula raaci waayeen dee in adeer ka noqo oo waxaad tiraahdaa wardaninkaas maxaa ku rahdaa adeer waa laga khaldamay qolkan inuu kusii socdo ama hadalka uu sii socdo ma qurux badno 500 qof halkan ka degtay oo dadkii reerku hadli jiray ah meegu qaadan jiray ah qadida duulin jiray ah intuba inaad ka soo horjeesteen ina ninka macnaha shaabada la saaro markii inaad adiguna de kor uga baxdo mar ku dhagaha noqonin aad baa in salaam ya dhamaantiin warriyaad horta anu kuma dhagani qofkan anu personality-giisa uma taagayo ilaa hadda dadku waan isfahansaneen warriyaad anu haddaan qalad leeyahay intiina meesha joogtaa qaladkaas leedahay sheekul kulliyow waa la tusi karaa fartana lagu fiiqi karaa naw haddaan qaldana waa qaldanta way dhigi kartaa way qaban kartaan murtimaal haddii aan qaladkiisa hor dhignay oo wuxuu uu shaaraca ka sameeyey la wada ogaa oo qaladkiisa hataa ka garaabi waayey oo uu niman dhalinyaro oo aan afka daarood ku hadlin oo midna afka majeerteen ku hadlo midna afka ogaadeen ku hadlo oo meeg iskugu dhiibay oo nin firiicay u qabtay haddii la yiri nio murtimaalow boqortaa waa ku khaldan tahay ma ahan de inuu dhaho kuma qaldaniyo waa ku saxanahay daaroodna waa kaftan kuwa furan yahay daarood waa wada kaftami karaan labadii daarood aan arkano meeg baan iskugu qabanaya de macnaha daaroodka boontigaas daaroodku lagu kala jebinaya nin anu dhika ma ataagayo duulaanna kuma ihi saan anu qadiyadda iyo fikradda u arko baan u arkaa idinku haddaad soo dhaweynaysaan daarood inuu wada kaftamo meeg koonisa la wada qaato aniguna habeen dambaan bilaabaya qadiyaddana inoo duuliya arkaadi ha may qadiyaddana sida caadiga u niyo halkaa ka yar qaato waa sii bixi rabaa inaad halkan ma ku noqonayaa sheekh kulliyow inaad waxaan rabaa inaan kula yara saxo inaad hortood maasan tahay madaxweyne waxa weeye adiguna ma khaldanid isaguna ma khaldana sababaynaya adigu ma khaldanido adigu waxbaa celcelinaysa waxaa rabtaa dadkaaga inaanay iscaayin oo waxa weeye tolkaa iscaayin oo habeen boqol isku furan qofkii markaas sababa cay inay timaadana inaad dhaliisho taa inaad wax ku saxan tahay waana kugu taageeraya murtimaalna mid kuma khaldano in loo soo tadheerayo kuma khaldana eg murtimaal maxaa looga bartay murtimaal waxaa looga bartay nin ilaaliya qadiyadda daarood dhalinyarada isku haya dhexdhexaadiya nabadeeya laga yaabaa meegaas intuu soo arkay oo qol kale inay isku caayi lahaayeen isroorba halkan ku xakamay oo yaan meegooda ha noqdo kaftan bilaa turxaana oo gabdhaha aan lagu caayino inta qol kale oo shurshuur inta isla tagaan maxaa gabar aan waxba iska reebi lahayn bal haddii Soomaaliya waxa tiraahdaa sidee xeegan noqoto xubnana u nabad galaan intii qol shurshuur intay tagaan cidiyaas kala bixi lahaayeen bal adigu meelaad ku xakameynayso ku kantaroorayso ku kaftameen si bilaa turxaana oo bilaa gabar caay oo nadiif oo laga yaabo inuu isaguna u fikiriyay muhiimaddu waxay tahay marka inaad adigu sheekul kulliyow in adeerka waad sixi kartaa laakiin waa sidee waxaad ku sixi kartaa inta uu codad wareede abwaan maanta xoogaa waa ka yar ful xumaatay arintana dan inooma aha nin odaya baa tahay nin daaroodnimada duuliya aniguna oday kalaanahay waxa weeye dhallinyaradeennu inay dhexdeena ka bilaabato oo meeg laysu qabto ma qurux badna inaarow arrintaas dib u dhig anugu hadda intaan murtamaa oran lahaa murtamaa nimaan saaxiibanahay weeye haddaan arrinta maqlay lambarkiisaan hayaa waa wacayaa waxaan oranaysaa xalay masaasa dhacday haa oranaar kuma qurux badnee waxa weeye bal si kale u maaray oo u jahay bahasho oo yaanay bilaabanin dhexdeena inaynu meeg isu qabanno ogahay murtamaada dee wax wanaagsan positive oo xal danta guud ee daarood u ah haddaan u soo jeediyo inaanu iga diideyn marka dhaliisha publiga ah un baanu ku niri xoogaa waxa ka qurux badneed inaad xoogaa maadaama nin weyn yahay ma garatay oo nin adeerkiisa xayabaata midugtaaguna ma fiicna
wixiina in dood laga dhigo oo la falanqeeyo mar walbana ma qurux badna hadalku markuu mid yahay laba lagama dhigo madaxweyne waxa weeye dhaliishaadu ma xuma laakiin waxa weeye bareefad ka dhig horena inoo wada wixii dhacana waa dhaceen aan iska sheekaysano walaan dheeraniyo maya hore inoo wada inaadeer talabaad adiga lafteeda kama ogolaadeen inaadeer in qol lagaa soo furto oo bulshadaadii iyo dadkaaga anigoo og inaan telefoon kaa soo wici karo inaan rayd kugu samayn karo maadaama tahay qof qadiyadii duuliya inaadeer inaan public bulshadii dhan horteeda maantoo dhan dhalinyaradii iyo tolkii aad magacooda iyo masabkoogaba aad ilaalinaysay ee intaasoo dhan aad u xiiqaysay iyagoonan waxba kugu siinaynin mataqaana cidna ayna lacag kugu siinin oo dhalashadii aad u dhalatay aad duurinaysay haddii one day oo wax ku hoos mareen uusan adan ixtiraamba ku heli karin oo qof walaalkaayo kusoo wico koran kara inaadeer maanta waxbaa kaa khaldoomay aadan heli karin oo intaa public lagaa soo furto indhihii shacabkaaga ku wax fahansanaa iyo ku fahan ka haysanba in maaragtay lagugu hor falanqeeyo inaad dee xoogaa disrespect ay muujinaysaa adigana maanta ma ogolaadeena marka murtimaal nin la sixi kara weeye anigu intaan ka aqaano murtimaal in la sixi kara weeye waa xilliga daaroodnimada markay taagan tahay niyow nin aan ka lexleexan daaroodnimada weeye xaqada la isu sheegaa ma ogtahay ninkaas inta aan ka aqaano taasaan ku aqaanaa marka ilmaadeerayaal anu waxaan qabaa inay dhalinyarada daarood is ixtiraamaan respecti haddaan inagu is ixtiraami weyno oo waxa weeyaan aan dee wax badan isaga leexleexan weyno ilaa wax laga maarsan waayo maahane haddaan inagu iska leexleexan weyno waxaa imaanaysa dhammaanteen midba mid inuu ixtiraami waayo kadibna berri ka maalin dee waxa weeyaan faliisa midna ay noqoto marka rag walaalo wuxuu ku dhaamani yahoon ma laha ninkaas wixii dhacay waa dhacay haddii uu dhacay in qaladkiisa loo sheego qofkii u sheegayana uu luuqa ka waco si sharaf leh uu ugu sheego way wanaagsantahay anigu bilaadan baan ahay maanta waan qaldoomi karaa haddaan qaldoomo dee haddii qol weyn layga soo furto waxaan u arkayaa inaan la ixtiraamin baan u arkayaa ama mataqaana qol weyn laygu falanqeeyo in la ixtiraamin baan u arkayaa kiyo axmed foocadday soo qaban karo iyo odhan karo wargaraad maxaa maanta kaa qaldamay nin weyn baa ahayde maadan xishoonin xataa iga qanjilsiin karo ya kiyo isoo wici kara ninka la yidhaahdo everybody halka saaran muxsin isoo wici karo halkan joognay hadda inagu qaladaad aniga iga dhaceen anaga kaa dhaceen aad bareefka inaad heer intaas anigana 10 jeer la isxaynana been kuu sheegayne qof adduunka wax soo jireen adduunka qof adduunka tig wada ah ma jiro ma garatay qof tig wada ah ma jiro bilaadan baa leeyahay daaroodnimadu waa u dhalasho qof laga saari karaayo ma jiro laakiin qofkii dee u bareero xumaan banaanka laga maraya haa qofka hadduu xumaan u bareero oo wanaaga iyo bulshada qiimaha badan ee daarood dhalinyarada hoos joogta uu ixtiraami waayo iyo dadka qadiyada daarood ilaaliya hadduu qofku ixtiraami waayo anagu banaankaasaan ka maraynaa laakiin qof aan sixi karno oo aan odhan karno walaal waxaan waad ka qaldan tahay waxaan waad ku qaldan tahay waxana waad ku saxsan tahay aan odhan karno inaadeer ma doonayno inaan xushmado intuu naga kuma u fogaado we don't need that hadda sheekooyin kulmaya wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi qof tiktok isticmaala aan isaga dhownahay ma jirno dabkaanu kala qaadanaa daris baana eg rag saaxiibana waa nahay oo iyo tiktok hore iyo social media hore rag soo wada jooga ilaa 2015 baanu soo wada xabad rideen qadiyado live ah qadiyadaha waxaa la dhahaa tiktok waxaa la dhahaa iyaga theory baa la dhahaa waa mid afka ah qadiyado practicaanu soo wada qaadanay oo gacan la isula jigayo daaradishim ah oo dabka la saarayo adagoo weyn oo adagoo tullima aan soo wada marnay nin aan maanta dee aqaano weeye shuqul kulli haddaan arko soo khalad ku jira qolkaygii inta soo camirto dhagaha ma jiri karo dee sababtaa warniyo halkaa iga ersiiya wax yar waad ka sii tegi rabaa niyo landheere anigo nagana raallah cabaar baan sugaysanaa sorry inta waxaan reer maxaa ku dhacay luuqa intaan qabto baan dhagaha jirayaa sax iyo khalad wuxuu leeyahay hadduu aniga wax ii qaadan waayo mid kalaan usoo qabanaya nimcaan gulwadoo kale ah waxaan oranaya war qofkan maxaa ka khaldan macnaa ila qabo whatsappkaasaan waxaan doono ka oranaya anoo diidaya kow isaga inaan horta dad ka hor keeno shuqul kulli maadaama nin saaxiibkiya labo in wax weeyde inaan arkay intaan bannaan ka caayi lahaan bareefad ka caayo ama wax kaga sheego taas waxa ku waxa tulnimada iyo isticaayilka iyo ixtiraamka iyo mabda'a iyo qadiyada guud in wax weey la wada duuliyo dadku dad ixtiraamo isu dhawaad noqdaan baa kamera dhalanaysa marka sheekhow anagu wax kale kuma dhaliilayno murtumaal malag maaha nin dhalinyaro weeye oo nin aayarkeena khalad waa ka dhici kara maalin walba khalad naga dhacaa qof walba khalad ka dhaca daarooda qof aan khaldamin oo dhalinyaro ah oo social media isticmaala oo daareedu ma jiro qofku waa khaldami karaa laakiin qofka khaladkiisa in si bareefada loo xaliyo dhowreedha abwan maanta waa ka yar leexatay bal dhinacan wanaagsan ama sida tan ama kan isaga laftigiisa wax laga yaabaa inuu fikir kala haysto uu taagan yahay warniyo maalin walba qol shurshuur badaaroodka isku caayayaan ciidayn maayaan inta meel shay isku caayi lahayn guriga isku caayeen anaa xakameynaya caydoodee sababtoo caydooda wax badan baa ka saaraya oo aan shurshuurkaas ka saareen wiil daarooda
inuu gabar daarooda caayada anu iga agteed kama suurtagelayso markays caayayaan ama iska kaftamayaan laakiin qol shuruurinta tagaan bay la gabdhihi ka xiranayaan that's way baan ugu xalinayaa baa laga yaabaa inuu yiri ma garat marka intaas way inaa ninkii dheertaha ma digi bal ninkii dheertaha soo qabo aanta dhanbu aamusnaa abu madaxweyne ma nafaantaad yarkii ma degay abaaskuul gaanka be soo gal abaaskuul hal mar oo khadka yarkii abaaskuul me wararta ilmaad reyaalow waa idin salaamaya mar labaad niyo anu horta ninkan personalitygiisa anigu waa u ixtiraamaya mana ku dhegani qofkan anigu intuu ii jirsado in leeg baan u jirsadaa shakhsiyana anigu uma ataagin qolna kama soo furan balse qolka hore buu u furnaa meesha waa la wada joogay waa noo yimid waxa la isla soo hadal qaaday wixii jiray aniguna su'aashaan weydiiyay waxay tahay murtimaalow qaladkaasa walaalow gashay daaradnimadii mid ah ba xeerkaa jabisay qodobkaasi muxuu noqonayaa weliba waa la kaashaday hadduu iga garaabi lahaa iga jawaabi lahaa waxaan oo dhan meesha ma soo gaarteenba wuu ila dagaalamay aniga ay doondoonaysaa buu yiri aniga maxaa iga galay haddii meegkoonisa la qaadanayo iyo haddii noo firic ay la qaadanayo daarad meeg waa wada qaadan karaa boor buu adigu xataa anigu wuxuu igu yiri niyo adigu siba aniga ii doonaysaa meeg laftigaagu ii farayso mana u socon mana dooni doono marka niyo ujeedku wuxuu yahay war qofka bini'aadanka ay wuu khaldamaa hadduu khaldamana waa inuu qaladkiisa qaadan karaa anigu isagana uma socdo murtimaal inuu qaldan yahay wuu og yahay balse xoogaa waxaa ku jirta qaladkiisa inuu ku taagnaado in adeerow isku duubnidu waxay ku wanaagsan tahay isku tanaasulka anigu ninka waxba uma qabo waa nin dhalinyaro ah daaradnimada kama xigo fikrad iyo wax aaminsan yahay buu duuliyaa waxaan aaminsanahay baan ka hadlaa isku aragti haddaan nahay waa soo dhaweynayaa hadduu iga aragti duwan yahay waa iga aragti duwan yahay waa ku ixtiraamaya balse wixii qadiyadeena hor istaagayo oo taabanayo qalad ku ah in la isku tilmaamaniyo tol baa loo yahay qaladkan anigu waa u tilmaamay wax kale oo aan ku sameeyay ma jirto qaladkaasaan kuu tilmaamay haddana inuu ninka anigu ma ku dhegani mana haysto de waa nin dhalinyaro ah idinkaas yaqaana haddii aad idinku la hadlaysaan iyo haddii kale toba kole anu hadda kumaba dhegeniba hawshaas saasaan uga baxay soo dhow niyo sheekh warwaay salaam garaadkii iyo afhayeenkii dhammaantiin soo dhow baraha harfusa inaad halkaas ka yar qaadaya wax yar baa siir taagaya niyo horta sheekh kulliyow waxa weeye waa ma qaldanid waad saxan tahay dadku inay wax isku sheegaan waa mid fiican qofkana waxa weeye in wax loo sheego oo wuxuu qalay iyo qaladka uu ku jiro la fahansiiyo ama loo cadeeyo waa mid muhiim ah meesha taala haddaan wax la isu sheegi karaynin inaad dadku waxba iskuma aha waxa weeye qolka waxa soo furay daarodiisan waa arrimo daarodiisan niman daarooda joogay dadkuna hadayna dadka wax iska kala dhahayn ama xasuuq sheegaynin qofkii qaldan la sheegaynin ka kala loo sheegaynin waa qaladku waa sii badanaya inaad waxa weeye sheekh kulli wax fiican buu sheegay arrintaasina waxa weeye inkastay meelo kale ku habboonayd oo sheekh kulli oo intaad ninka gooniyaan u wacdo aad ma garanaysaa babliga oo waxaad moodaa dadku babliga inay aad isaga difaacayaan qof walba shakhsiyadiisa oo xitaa qaladkii uu galay una fahansanayn waa difaac isugu jiro marka aniyo bal meelo kale hadda kadib ku dayi doonaa si qofka gaar ahaan loo xalliyo waayo dadka babligan aad baa cudurdaar uga sheegteen qof garaabaya ma arkaysa qof walba waa isdifaacaya marka aniyo sheekh kullina waa nin arrimaha daarodiishanka aad u duuliya waa ninkaasi waa ku waxa qaldan inuu soo qabto daarood dhexdiisa uu ku fiican yahay dee ninana lacag kuma siiyo isagaa isu diray qolka habeen walba soo fura kaga hadalla dee arrimo noocaasa isugu nimaadno isku xog waraysano marka niyo sideeda bannaanba qofka qaldan in wax loo sheego gooni ahaan nimankaa way qaldameen abwaaniinta iyo ninkaasba in si fiican wax loogu sheego oo waxa weeye halka ay wax marayaan iyo halka ay wax noo yaalaan aynu gooni ahaan ugaga wada hadallo oo waxa weeye luuqa inta magaranta loo galo sheekh kulliyow intaas kugu soo korodhay intaas kugu bogaaginaynaa hawsha aad ku jirtana inaad waxa weeye nina lacag kuma siiyo waxa weeye waa dadaalaysaa daarodiishankaad duulinaysaa halkaa ka sii wad baan ku leenahay annagu waa kugu taageersannahay hawsha aad ku jirto iyo sida aad wax u kala hagaysaba marka dadkuna inay arrimaha isaga garaabaan baa fiican qofkii qaldana inaynu qaladkiisa u sheegnaa fiican sheekh kullina wuxuu ka dhawaajiyay waa wax jira oo waaqicad ah waxyaala aan la arag baa jira qof daarooda laba daarooda oo free meg ay wada hadlaya lacag wada hadlaya waxyaala aan joojinay bay ka mid tahay markaa in madeerayaal hawshaasi sheekh kulli aad buu u mahadsan yahay siina dadaal siday labadaa nin ee iga dambeeyey ka dhawaajiyeen abwaanka nimcaan iyo axmed cadde waxa weeye hawlo kala
arrimaha ay ka dhawaajiyeen waa in loo xog dheeraado gaar ahaan ma garanaysaa qofka yacni babliga aad inay dadku isku difaacayaan baad aragtaa hawshaas laftigeeda inaan meel kale ka fiirnaa fiican marka niyo hawsha hore aynu u soconno nimankaasna waxa weeye waxba hadda caawa looma qabo aan u malaynayaa laba ninoo daarooda kaftamay iyo nin qolkiisa ma garanaysaa ayay u soo furay unbay ahaayeen haddiise wax layska weydiiyey daaroodku inay runta ka sheegaan bay ahayd arrimo aan jirin hadda ka hor aynu soo marin inaynu maaragtay aynu siyaasadayno ma aha arrimaha noocaasa wixii meel ku xidhan meel buu ku xidhan yahay wixii wax layskaga weydiin karana waxa weye shakhsiga isaga laftigiisa biniaadanka inaan babli la keenin isaga gaar ahaan loo waraysto ayaa wanaagsan arrimaha inaynu ka shaqaynaa fiican inagu soo kordhay babliga waxaad moodaa dadku inay aad isu difaacayaan xitaa wixii ay galaan iyo waxay gudeen midna ayna ka jawaabi karayn waayo intaasoo ruux baa daawanaysa ninna qaladkii inuu suqira ma ogolo marka arrimahaasaan kolay ka daba tegaynaa horeyna inoo sii wada hoostaan in yar tegaya waan la joogaa ma fahanti waa maasantahay aad baan idin salaamayaa garaad salaamullah waa maasantahay soo dhow habeen walba gar meeg baa ku jirtaan gar meeg yaa ilaahay yaqaan habeenadan waxaa ka tahay haddii meeg la qaato